السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maskaxdu waa meesha kaantaroosho dhammaanba shaqada jidhka. Maskax caafimaad qabtaana waxay ka timaadaa jidh caafimaad qaba. Habdhiska difaaca ee jidhka ayaana muhiim u ah caafimaad qabka maskaxda iyo jidhkaba. Haddaba si habdhiska difaaca jidhkaagu u noqdo mid caafimaad qaba iskana difaaca xanuuno badan, waxay khubarada caafimaadku ku taliyeen in la raaco talooyinkan tobanka, kuwaas oo kala ah: kow, jooji noocyada kala duwan ee balwadaha sida qiijinta sigaarka iyo mukhaadaraadka kaleba. laba, isticmaal noocyada kala duwan ee khudaarta ee muhiimka u ah difaaca jidhka. saddex, si nidaamsan u samee una joogtee jimicsiga uu jidhkaagu u baahan yahay si maalinle ah. afar, la soco oo kaantarool miisaanka jidhkaaga. shan, seexo hurdo kugu filan kana dheerow hurdo la-aanta. lix, markasta ku dadaal inaad nadiifiso gacmahaaga, gaar ahaan markaad cuntada cunayso iyo markaad tagto xamaamka. toddoba, iska ilaali kana dheerow warwarka iyo murugada. sideed, ilaa xad iska yaree hana ku degdegin inaad isticmaasho daawooyinka antibiyootiga ilaa inaad ka maarmi weydo maahe. sagaal, maalin kasta cab biyaha uu jidhkaagu u baahan yahay, kuwaasoo lagu sheegay ugu yaraan maalin kasta inaad cabto 8 koob oo biyo. toban, isku day inaad isticmaasho shaaha cagaaran, kaasoo muhiim u ah habdhiska difaaca jidhkeenna. isla dhinaca kalena, waqtiyadii u dambeeyay waxaa aada u faafay in la isku daweeyo biyo diiran iyo liin dhanaan la isku daray oo la cabo subaxda hore xilliga caloosha qofku ay maran tahay. meesha ugu badan ee laga isticmaalo biyaha diiran iyo liin dhanaanta la isku darayna waa wadanka China, iyagoo xataa carruurta yaryar ee iskuulada tegaya weel ugu shuba biyo diiran iyo liin dhanaan la isku daray. 5 sano u dambeeyayna daraasad la sameeyay waxaa lagu sheegay in dalka Chinaha oo ah dalka ugu dad badan dunida ay dadka Chinahu noqdeen dadka ugu xanuun qaadista yar. haddaba waxaynu dul mari doonaa 10 faa'iido oo ay leeyihiin biyaha diiran iyo liin dhanaanta la isku daro ee la cabo subaxda hore, kuwaasoo kala ah: kow, waxay si cajiib ah u nadiifiyaan beerka iyagoo gebi ahaanba beerka ka maydha sunta. laba, waxay ka dhigaan dhiigga mid nadiif ah oo si fiican u shaqaynaya. saddex, waxay nadiifiyaan tuubada dheer ee micdharada waxaanay guud ahaanba caloosha ka nadiifiyaan jeermiska. afar, waxay si la yaab la kor ugu qaadaan difaaca jidhka. shan, waxay si wanaagsan uga shaqaysiiyaan dheefshiidka. lix, waxay si tartiiba kaliyaha uga saaraan dhagaxaanta. toddoba, waxay yareeyaan xadna u yeelaan qanjo xanuunka. sideed, waxay wanaajiyaan caafimaad qabka wadnaha iyo maskaxda. sagaal, waxay ilaa xad hoos u dhigaan dhiigkarka. toban, waxay fadhiisiyaan oo xad u yeelaan miisaanka qofka. ugu dambayn, ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama iyo dambi dhaaf. aad baad u mahadsantihiin.